barnaamijka bandhiga ayaad la socotaan qaybihii hore ayaad daawanaysaan waxaa si toosa idinkaga imaanaya telefishinka Universal Studio-ha magaalada Muqdisho markan degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose shalay waxaa xilkii la wareegay gudoomiyaha dhalinyarada gaar ahaan dhanka ciyaaraha waraysi uu TV Universal waxa uu ka hadlay in uu horumarin doono ciyaaraha degmadaasi waa munaasabad lagu caleema saarayo gudoomiyaha cusub ee kubadda cagta degmada Afgooye Cabdiwali Colaad Qanyare Gaatamow oo dhawaan wasaaradda ciyaaraha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay soo magacaawday munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa kooxaha ciyaaraha kubadda cagta qobro dhanka ciyaaraha ah iyo xubnaha maamulka degmada Afgooye inta munaasabadda ay socotay waxaa madasha ka hadlay marti sharaf badan kuwaas oo gudoomiyaha cusub ku soo dhaweeyay hoggaanka isboortiga degmada Afgooye gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasim Carab ayaa Gaatamow ku tilmaamay shakhsi ka bixi kara mas'uuliyadda uu qaaday gudoomiyaha cusub waxaan leenahay maxay dhahayaan waa idinka mahadcelinaa xafladan wanaaga ugu soo qayb gasheen aniga waxa la iga codsaday inaan maanta idin furo halkan oo caleema saarkaas aan ka soo qayb galnay tan kale waxaan leenahay gudoomiye cusub baa la idin keenay waxaan filaa xiriirka kubadda cagta degmada horumarkeedii iyo markay la jaan qaadi lahayd meelo badan oo gobolka ka mid ah degmada Afgooye maadaama waqti dheer kubadda cagta maxay dhahayaan Cabdiwali Colaad Gaatamow raalli aadan qalbin magaca marka waxaan aad ugu faraxsanahay aan maanta qiyaasi karaa degmada horumarkeedii inuu imaaday in qof hogaamin karo oo xiriirka kubadda cagta degmada Afgooye horumarin karo oo karti iyo khibrad ba u leh oo ninkii mudnaa in la soo magacaabay waxaan aad ugu faraxsanahay xafladii xil wareejinta iyo caleema saarka oo maanta aan ka soo qayb galnay inay hore u socod doonto shaqadiisina ay u bilaabo doonto maadaama la soo magacaabay maalmo ka hor xafladanina waxaan ugu talagalnay maanta maalin ka hor inay dhacdo laakiin cudurdaar kala xoogaa dib noo dhigay iyo arrimo kala jireen marka wax walbana waqtigoodii ayay bilowdaan maantana waxaan aad ugu faraxsanahay mar labaad mar saddexaad in waqtigii oo ilaahay noogu talagalay inay maanta ahayd caleema saarkiina maanta si loo dhan yahay loo dhameystiran yahay degmada Afgooye dhalinyarteedii odayaasheedii culamaa diinkeediina ay ka soo qayb galeen inta kale aan ka soo qayb galin ayagana cudurdaar sheegtayna waka in loo dhameystiran yahay caleema saarkan cid ka maqan aysan jirin waxaan leenahay Gaatamow nin firfircoon waaye oo shaqadan hogaamin karo oo degmadana degmooyin kale fara badan ku xiri doono dhalinyartii horumarkoodii kubadda cagta wax sahlan ma ahan waa meesha kaliya dhalinyarteeni dadkeena deegaanka ay ka wada xiriiri karaan horumaro badan ay ka sameyn karaan isdhaxgalka bulshadu waa meesha kaliya laga abuuri karo isdhaxgalka bulshada maanta haddii dhalinyarteeni ay noqdaan kuwa aan iska warhaynin kuwa aan xiriiro lahaynin hadday ahaayeen saakay waxaan idin leeyahay waag cusub aa idin bariyay waxaana dhici doonta horumaro fara badan dhalinyar badan oo maanta aan isku xirneenin xaafadaha Afgooye oo maanta isku xirnaasho la'aan ka jirtay in badan oo kubadda cagta xageeda xiriirka kubadda cagta ay ahayd mid isaga liidatay laakiin maanta waxaan filaa in horumarkeedii ay qofkii mudnaa oo loo keenay aada u mahadsantihiin bulsho aada u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoomiyaha cusub ee kubadda cagta degmada Afgooye Cabdiwali Colaad Qanyare Gaatamow ayaan weydiiyay waxa ugu qorshaysan horumarinta bahda ciyaaraha degmada Afgooye bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi horta aad u mahadsan tahay magacaygu waa Cabdiwali Colaad Qanyare ku magac dheer Gaatamow macallin qaran macallin kanaadiga MCC golhayaha u qaabilsan qaranka Soomaaliya maantana waxaa la caleema saaray gudoomiyaha isboortiska degmada Afgooye runtii meel Everal iyo caleema saaray bilow fiican waaye degmada markii hore ma lahayn B ma lahayn C ma lahayn dadkii ka soo shaqeeyay waa maamulkii hore
waan ku mahad celinaya, waan u mahad celin doonaa insha Allah mar walbana waan u mahad celinaya because ever ma aha maanta degmada waxay leedahay A, waxay leedahay B, waxay leedahay C. maamulkii gudoomiyihii hore sportska, gudoomiye ku-xigeenkii, xogayihii dhammaan waan u hambalyeynaya iyo dhammaan ciyaartooyda degmada Afgooye. waxaan ka sugayaa runtii inaan wada shaqayn sportsku waxaa waaye waa la qabiil ma lahan sportsku, siyaasad ma ahan. sportsku waa dowlad madax bannaan, waa dowlad lagu wada midaysan yahay. marka waxaan aaminsanahay maanta sportska degmada meesha uu taagan yahay meel fiican waaye. insha allahu tacaala meel laga sii jeclaado aan rabna. haddii aan geen weynana waan sida maanta looga dejiyey maamulkii hore ayaa anagana uga degi doona hadduu ilaahayno. wax badanna waa qaban, ballanqaad waxuma sheego dadku, wax ballanqaado beenay sheegaan. annaga wixii tabarteenna, wixii karaankeenna, sports aqoon fiican aan leeyahay. yaraanteedii ilaa haddeeraan ka soo shaqeeyey. waxaan diyaar u ahay anoon wax ballan qaadin inaan la shaqeeyo ninka ugu yaroo maanta loo baahan yahay inuu under 15ka 15 jirada qaranka ka mid noqdo iyo ninka ugu weyn oo maaragtaa oo maamulka inaan si sida cadaalad ah, wax walba cadaalad ka weyn inaan si cadaalad ah aan la shaqeyn doono insha Allah tacaala. waa gartay dabcan guux baa jira maadaama hogaanka isboortiga ee degmada bedel uu ku yimid. bal ka waran mala kulantay gudoomiyaasha kooxaha ka dhisan degmada si arrimahaas kala kaashato? cabdiweli aad u mahadsantahay online. runtii la kulanka maamulada aniga ma lihi, shaqadaasna markii hore shaqadeyda ma ahayn. hadda markii laygu wareejiya aniga ayaga shaqadeena maanta ay noo bilaabatay compulsory way before, laakiin inaan waco xaq uma lahayn. waa liga lahaa maamulkii hore lahaa inay ciyaartooyda wacaan, ayaga wacay. laakiin wixii hadda ka dambeeya maamul ay ku-xigeenay joogo, xogeeyaa joogo, anigana waxaan ahay gudoomiyihii. marka waxaan rabnaa inaan iskaashano. haddaynan iskaashi jirin, haddaynan isla tashi jirin, wax lama hormariyo, wax horumaris ma imaanayo. sportiska Soomaaliya waa horumaray meesha uu taagnaan jiray. sportiska inaan ka horumarinaan diyaar u nahay. waxaana leeyahay kooxaha iyo macallimiintooda iyo maamulkooda isu diyaariya inaad horumarisaan degmada, annagana garab aan idinku siinayna insha Allah tacaala. cabdiweli cali online, barnaamijka bandhiga TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose. waryaheena online aad buu u mahadsan yahay oo warbixintaasi nooga soo diray degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose. barnaamijka bandhiga